bal nabigu bini aadamku ku dadaalay quwadiisa iyo fikirkiisina wuxuu ku bixiyay siday bashariyadu u islaaxdaa siday bashariyadu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhawaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqa ula yeeshaan taasuu nabigeenu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam ummadii hore baa la yidhi mar alle markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weydii ilaahay biyo xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida u soo dejiyo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min aلsamaa nebi ciisey maraynays yidhahdeen noo weydii ilaahay inuu xedhan noo soo dejiyo reer bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaane cunto ay u tabcaan la siiyana nebi muuse u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaane arladow nooga soo saaro tamaraad iyo mudho walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamulambiyaaya oo imaamulambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum aniga toos ii weydiista waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiista waxaad doonaysaan waa nin yeelaya aniguna barya waa niga ajiibayaa dhammaan asxaabta nebigu ducadooda mustajaabay ahayd limaada ilaahay bay barteen xadhig ilaahay bay qabsadeen ilaaha khaaliqa cilaaqa dhaba la yeesheen ducadoodii baa noqotay mustajaaba nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisu ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila billaahi ilaahay cilaaqa la leh markuu doonay carshigii bilqiisin loo keena maaragtaanay falastiin uu nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshihaa qabla an yaatuunii muslimiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika cifriit jinka ka mida wuxuu yidhi dhowr saaca ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi halkaas qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab asif binu barkhaa bay mufasiriintu dhigeen magaciise wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ilgibidhs ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi ilgibidhs ayaa carshigii bilqiisa min ardi alyaman ilaa iyo falastiin lagu keenay ilgibidhs walaakiin asxaabtii nebiga radia allaahu canhum imisa khawaariqu alcaadaat imisaa ka soo daahirtay noloshooda sayidina cumar radia allaahu canhu camar binu caas markuu masar tegey dadka reer masar caado waxay u lahaayeen gabadh bikira oo shaabadoo qurux u dhalatay labadeeda waalintay raalli geliyaan ee lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga niil ku tuurayeen deedna webigu markaasuu biyihiisu isziyaadayeen deedna markaasay beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyey abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer masar waxay u dhowaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey cumar buu u diray risaalo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin arrintaasaan ku arkay reer masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gudhayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waad asiibtay buu ka yidhi waad asiibtay maaragtaane waad asiibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartooda iyo cuqaashooda ururiyo webiga niil dul teg warqaddaan webiga ku dul furo ku dul akhri deedna ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquul ah soo maaha qof baa webi warqad u dira ka warrama waa sila billaah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas